بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشين سمسم جنة الكيد كسور دوال أصحابته ميلو بقى جوكتين بش برواقو إن شاء الله الله إذن كسيو. أنا الحمد لله وعافمات قبنا إذن كانوا حيدين رجيه هنا عافمات سيداس إسيلا مدى إن شاء الله أنت يجرني الله عافية أنت عافمات هيستنى الله السياديو إن شاء الله تعالى. ما شاء الله تبارك الله. أنت نلي جوكتوا ومهتسينهين أنت نقصو بيرتنا ومهتسينهين وإذن سودوي هنا قعمة فرن قلبي فرن كسور دوال أصحابتنا. maanta waxaa idinla sheer garaynaa insha allah sabaayad ama jabaad had sida u taqaanid ayaan suubsanay soo dhawaada asxaabteen meel walba ay joogteen. maasha allah 4 koob oo bur ah, qaado yar oo cusbe ah, 2 xabo oo ukun ah, hal qaado oo xabad albaraka haddii aad jeceshahay, haddii aad jeclaan waa ka dhaafi kartaa dhib ma lahan, koob oo xaliib ah iyo koob oo batar oo lasoo dhalaaliyay. haddii aad saliida ugu bedeli kartaa batarka oo rabin, haddii aad rabtana batarka, haddii aad labada haystana nooca jeceshahay. maasha allah asxaabteena waxaan idin rajaynaynaa baraari bashbash meel walba ay joogtiin. allahna wada caafiyo, allahna maxay yiraahaa nagu xafido meel walba aan joogno. alxamdulilah anaga fiicannahay. idinkana waxaan idin rajaynaynaa khayr iyo baraari bashbash. waxaan idin codsiinaa channelkeena inay noo saartiin subscribe, like, share, comment. inta waa xaggeena. waa mahadsantihiin. allah raxmaanka ayaa mudan inaan u mahad celino. idinkana waa mudantihiin inaan idin mahad celino. marka soo dhawaada asxaabteen meel baa joogteen. allah idinku xafido. haddana waa qasahaynaa cajiinadii saas soo dhexgeli. sabaayad yar oo khafiif ah. haddii aad rabtid maraqa ku cuni kartaa, haddii aad rabtid maxaa yiraahaa kaligeed. hal qaado oo sokor aan ku daray. qofka sokor badan ku darsaayo oo shaaha isaga cabayo caadi saas waa socaysa. qofka maxaa yiraahaa sokor badan aan rabin inuu maraq ku cuni rabane maraqiisa ayuu ku cuni karaa. sokorta ma laga badiyo markaas, ma u baahan sokor badan markaa maraq ku cunaysid. laakiin haddii aad u baahan tahay inaa maxaa yiraahaa shaah isaga cabis, shaah bilxaliib iyo isaga cabaa shaah rinji nooca jeceshahay, sokorta oo badsan kartaa baadeen waxay ku naqaysaa sabaayad yar sare oo jilcan oo macaan ah. cajiinada si fiican soo dhexgeli. gacantaada le hadda kula xisaabtamaysaa jaleeceeda iyo maxaa yiraahaa biyo inay kaa naqaysa gacantaada la socaysaa. marka aad fidisid oo marka aad si fiican u qasday jaahis ku noqotan fidiska ayaa bilaabaysaa. maasha allah sabaayad waa la wada yaqaanaa, laakiin dadka oo bisraac isaga qasayo maxaa yiraahaa isdhaafsi camal u sameeyahay ee ka halaabaysaa bis. laakiin haddii aad rakistid oo aad si fiican u qastid cajiinadeed waxay ku noqonaysaa cajiino jilcan oo aad heer sare ah. iyadana marka la dubo kabacdi waxay noqonaysaa sabaayad oo jilcan oo maasha allah oo guusaa xanuunahayna ciyaalka yaryar cuni karaan, qof weyn qof walba cuni karto. maasha allah si fiican u soo dhexgeli cajiinada, waqti fiican si fiican u qas. marka aniga fiidiyowga marka inaan wax badan naqayaan macaa, laakiin markaan si fiican soo dhexgelihay ma wada duubi. hadda wax yar in yaraan ka duuba bacdeen inta kalena maxay yiraahaa si fiican oo siiqasa saas in la yeelaa fiican. yani fiidiyo oo aad u dheer oo 20 daqiiqo qof oo rabta malahan oo fiirsayso. marka maasha allah tabaaraka allah la socod wanaagsan fiidiyowgeena la socda share noo dhaha haddii aad ka heshay saaxiibadiin la wadaag insha allah. saas markaa isu dhex geliso iyadana maxay naqay jaleec maasha allah. caanahan waa qandacayn aan ku qasiisi maha caano qabow ah. saas oo soo jarjaray oo soo kuskusay oo soo safay waa si daboolay wax yar heer saliid ku sii jilcay. inta maxay la taawadi asid yarsiis iyo saliid waxa uu duus inta asid yarsiis wax yar si dabool 10 daqiiqo ama jaleec ku sii naqay cajiinada oo heer sare. markaas waa fidihaysa waa la laabay waa si dubi ala duul. wax dhib badan maahan alxamdulillaah noo sahlay. inta aqaanina ka faa'iideysi wacan, inta taqaanana allah u sii siyaadiyo insha allah taala. saas u soo kuskus cajiinada. haddii aad rabto waaweyn ka dhigan kartaa cajiinada intaa kasii waaweyni kartaa sabaayadani. marka aad fidisid wax waaweyn ku naqay oo aad u balbalaaran. haddii aad yar yarne cajiinada yaryaraysay saad badoo qaada kaciyaysa jooska adigaas kale marba nooca jeceshaa samaysaysaa. mar waxaa samaysay mar oo maraq lagu cunaayo oo sokor dhan lagu daraynin oo hilib ama u sameeyaysid oo odgac ama maxay yiraahaa suqaar iyo hilib loo sameeyo ama maraq caadi oo cad loo sameeyo anwaac oo shakaal markii oo sokorta laga dhaafo saas loo cuni karaa. sokortana maba laga badin. hadda hal qaata leewaay waxaa u samaysaa hilib baa loo sameeyaa, laakiin hilibka ma soo duubin iyada kaligeed ayaan soo duubay. iyada oo hilib iyo maraq iyo leena waa janalkeena ku jirtaa. haddii laga raadiyo wax badan aan suubin alxamdulillaah allah noo siyaadiyo. inta haysan allah si insha allah taala. soo dhawaada asxaabteena meel baa joogtiin baraari bashbash ayaan idin rajaynaynaa insha allah.
cajiinada marka saas u wada kuuskuusto wax yar 10 daqiiqa sii dabooli waxay ku noqon cajiin heer sare ah oo aad u jilcan haddana waa iska jilcanta waa u jeedin maasha Allah marka qofti qasitaanka markuu kuu tooso waxa uu kuu toosayo marka laakiin haddii uu kuu toosin qasitaanka cajiinada wax walba aksamiis waa ka halaabayaan saas loola fahmo saas loola socdo insha Allah taala asxaabteen meel ba joogtiin insha Allah la socod wanaagsan insha Allah taala maasha Allah halkaas wax yar kiyir wala isla wada sima waxaa laga dhigaa maqas oo isla wada eg sabaayad yar yar oo beela inaa ka dhigaan rabaa aniga waaweynna waa laga dhigi karaa haddii aad cajiinada halkaad sidoo yaala laba la iskugu daro waaweynay noqonaysaa laakiin aniga yaryarkan ka dhiga marka qofta jecel saliid waa sii mari kartaa hadda ani batar badan ku qasa saliid badan sii mari alashan waxa hadii saliida ama subag ay ka bataan ma fiicno saliid badan iyo sokorta badan waa la iska yareeyaa marka hadda ani waxaan ku qasay batar badan oo koob waxaan ku qasay aad saliid korka ma ugu marihay waa laba duba bas taawada saliid la marihaa saliid xataa geesaha hadii looga shisho waa sii badahaysaa laakiin wax yar taawada marka la mariyo iyadaba gaduud ku noqonaysa sababta marka saliid ay ku qasantahay ama batar uu ku qasan yahay cajiinada saa gaduud iska naqaay iyo sokor saasne waxa waaye in la ogaado waa fiican tahay sababta haddii iyadoo saliid badan aad ku qastay ama batar badan aad ku qastay dan saliid kale aad sii maris korkeeda saliid waa ku badaya marka cunisid saliid ma fiicna oo badan marka dubis idaab iska gaduudaysa adoo saliid waxaas ku darin taawada le kullee u gaabi dib oo gaaban oo heer sare ah oo aad maxay raaha kaaga gubahaynin ee tartiib soo bislaahayso tartiib ugu dub waay maasha Allah saas aan ku soo dhameeyna la socod wanaagsan saas u soo wada laalaab marka fidis laalaab isku laalaab tan waa si fidihe ma la wada yaqaanaan laakiin maxay raadad oo waxa iska jir si fiican inay wax u fahmaa iska jecel maasha Allah tabaarakallah cajiinada idaab iska fidsamayso maxay raaha markay si fiican ay kugu qasan tahay saas oo iyadoo dhan bisraa ugu fidsamaysa maahan wax oo adeeg makaan naqas laakiin markay adeeg ka noqoto ma fidsamayso waan ka jajabaysaa laakiin tartan marka la laabisid maasha Allah jaleec hore le ufida hore le laalaab bisraa ku samaysan kartaa wax dhan dhaqsi ku samaysan kartaa ama surca sida jeeshan maasha Allah asxaabteen saas loo socdo hadii kale xataa si kale oo laalaab kartaa sahan kaliya noocan bis maahan nooc kale jir marka la fidiyo oo afartan dhinac laga soo laabayo oo la sii fidahay noocaasna laga dhigi karaa aan hadda noocan ka wada dhigi laakiin maasha Allah asxaabteen meel baa joogta fiidiyowgeena maanta waa gaaban yahay waa sabaayad kaligeed ku soo dhawaad meel ay joogtiin baa Allah idinku xafido haddana taawada waa noo kululaato waa fidahayna waa dubaynaa maasha Allah ay naqaysaa idoo maxamar oo dahabi ah ay ku soo baxaysaa shaah xaliibkaaga u samayso haddii aad rabtid maraqaada u soo diyaarso nooca jeceshahay ba ku cun inaa bismillaah dhahdid ilmaha badan waxay ku jecel yihiin shaah bil xaliib hadii loogu sameysaan ama shaayga iska cunayaan fatiirada iyo saan ah shaayga iyo ku cabayaan maraq ilmaha badan ma jecel laakiin dadka waaweyn markaas ka cunayo marka saasaan ku soo dhameeyna insha Allah fiidiyowgeena waa gaaban yahay maanta intaas ayuu ku soo gabagabowday insha Allah asxaabteed meel baa joogteen Allah idinku xafido anaga inta muslim Allah na xafido taawada waa kululaatay saliidaas oo la marihayo waxay rabtay maxay rahaa ay gaduud hore ka naqays waxay saliid waa lagu sii dar karaa laakiin ma u baahna saliid badan inaad ku sii dartid gaduud ay ku naqahay ala doon wax walba biyo qanta iyo xaliib qanta lagu qaso cajiinadaas marka halaabayso wax yar geesaha saan ugu marmar bis ma u baahna saliid badan iyadaba gaduud ku naqaysa ileen batar badan ku qasatay maasha Allah waa fidsamaysaa haygalas ayuu ku soo baxday maanta fiidiyowgeyn intaas ayuu ku eg yahay saxankaaga soo saaro markaad dubatid maahan fiidiyow dheer insha Allah haddii aad ka hesheen saaxiibadiin sheer la wadaaga fiidiyowgeena sheer noo dhaha like subscribe commentiga nagu soo dhiirigeliya intaas waa codsigeena inaad tixgeliseen Allah raxmaanka ka dhigo meel ay joogteen Allah idinku xafido soo dhawaada asxaabteena dibka u gaabsan yahay yani haddii aad dibka u gaabsaas gaduudka ku soo noqday tahabi laakiin dibka haduu dheerisan yahay hore kaaga madoobahaysa mana fiicna wax madow dahabina ahata fiican
ما شاء الله تبارك الله kusoo baxdo hada waa dhameeyay hadana iyadoo daawo qurxan saxankeena soo saaranay bisinka u qabso fiidiyowga intaas ayaan kusoo gabagabeynay meel ay joogtaan la idinku xafido like share comment subscribe insha Allah waxaan idinkaga tagaynaa intaan fiidiyowga ku kulmayno hadduu Allah awoodo lana ogolaado. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.